وأفريدود كمجالات بيضاء وحمانت هالكان لكانين ميلاد خوارجتي صور كفر يسمو عيدن كحوق دالك الصومالية دا يقول هايين deegaan lagu magacaabo gasarta oo ilaa iyo 15 kilomitir ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed meedadkaas oo 10 kor u dhaafaya ayaa dadkan tirada badan aad u jeedaan oo halkan jooga waxay u soo daawasho tageen inay arkaan oo runtii iyaga oo wajiyadooda laga dheexan karo sida ay ugu faraxsan yihiin in khawaarijta lagu laayo halkan marka saad u jeedaan waa bartamaha magaalada Baydhabo astaantan ayaa lagu garanayaa ganacsi ma jiro oo ganacsiga dhan waa la soo banaday kumanaankan dadna halkan ayay joogaan saa u jeedaan halkaas lama gali karo meedadkii ama khawaarijtii baktigooda ayaa halkan yaalla dadku way masharaadayaan aad ayaa loogu faraxsan yahay marka dagaal xoogan oo runtii jab weyn lagu gaarsiiyey khawaarijta ayaa ka dhacay dadka saad u jeedaan suuqiina waa xiran yahay ilaa iyo halkaas dad baa jooga ilaa iyo dhankan markaad fiirisinna dadkii waa isu soo baxeen tan waxay ku cadaynaysaa sida khawaarijta ay u naceen dadka shacabka Soomaaliyeed lama gali karo gudaha oo dad ayaa soo buux dhaafiyay inkastoo aan jecleen khawaarijta baktigooda marka waxaan isku dayaynaa inaad aragtaan baktiga khawaarijta oo iyagan saad u jeedaanba halkan ayay ku jiraan tobanaan ayay kor u dhaafayaan marka waxaan isku dayaynaa inaan deegisno khawaarijta dhibaato weyn ayaa loo geystay runtii ilaa iyo halkan iyagaa dhooban saad u jeedaanba dadka shacabka ayay ugu faraxsan yihiin inay dagala soo daawasho tagaan saad u jeedaan waa kuwa meydadkooda halkaa dhooba baktigooda halkan la keenay geesiyaasha qaranka maanta way cibaadaysteen saad u jeedaan intaan dad ah ayaa isugu soo baxay maalin ciideed ayaad moodaa dadka say u faraxsan yihiin wixii barnaamijyada la xiriira macluumaadkaas waa inala soo xiriiri doonaa insha allah